بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل soo dhawaada channelkay Yasmin Style Tube. Hadday igu cusub tahay waxaa kaa codsanaa subscribe, like, comment hoos igu reeb. Hadday la joogi jirtana sidoo kale like-ta iyo subscribe-ka ii saar. Subax wanaagsan, subaxnimo waaye. Moringa halkaa kusoo diyaarsaday. Marka moringaha xoogaa shiir uu qaba iyo dhadhan nooc kale cilaan. Marka waxaa ku darsadaa sanjabiil si uu iigu carfiyo. Sanjabiilkana haddii asagana waa iska fiican yahay, calooshuu fiican yahay, dheefshiidka. Maasha Allah, intaasaas kusoo qastay meelaan dhigayaa intay igu sii milmayso. Canjeeradeyda iska karsanayaa quruxda badneed ay igu aqoonteen. Maasha Allah, canjeera maxaa la dhahaa ish calaa canjeera. Maasha Allah, sidaa quruxda badan canjeeradeyda kusoo sameysanaya ujeedaan kaaliska arag. Marka canjeerada dubista waxaa waaye iska caadi. Marka canjeerada markaan dubay howlahayga kale iska dhamaystay waan baxay supermarket ii dhow yaan orod ku tagay. Xabaaji waxa la dhaho dhan guriga iima yaalin. Marka qado yaroo kala kacsan inaan sameysanaa rabay waxaan soo gatay markaa spiceski ama xawaajigii aan u baahnaa iyo yogurtkaas iyo waxaan soo gatay bahalkan maxaa la dhahaa wuu ii gooyay bisinke. Yogurtka plain waaye. Yaanyo shiishiid. Marka intaas yar baan soo gatay oon u baahnaa oo ii ahaa muhiim maalintaas ayada inaan qado ku karsado. Marka qado kariskii baan guda galaynaa. Halka waxaa kusoo qabsaday 3 xabo yaanyo iyo 4 xabo basal iyo 4 xabo yaanyo. Suugo yaroo kala kicis yaan kasoo tuuri rabaa. Marka insha Allah ka faa'iidaysta. Sidan hadaa u karsato lagama sheekeyn karo macaankeeda. Waqti badanna ma kaa qaadanayso. Yaanyadii basasha isku soo shiidaya marka hore. Yaanyadu waa 4 xabo yaryar. Haddii waaweyn tahay 2 xabo ka dhigo. Marka sidaas u soo jarjarayaa makiinada yar aan soo qaatay. Yaanyada saas u soo jarjarayaa. Maasha Allah. Please waxaan iga codsanayaa inaad like-ta ii badisaan oo hadday videoga kala kicisaan. Maalmahan waa caajisanaa, waa yara xanuunsaday. Alxamdulillah hadda comeback-aan sameeyay, waan soo laabtay. Ila socda ishay u haaya. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan ii daawatiin. Sida quruxda badan like-ta igu saartiin waa mahadsantihiin. Halkaas makiinadii kusoo diyaarsaday biyo yaraa kusoo shubay yaanyadii basashii si fiican u shiidaa. Waan isku soo shiiday si fiican smooth ilaa ay kasoo noqoto waa shiidayaa. Ani inta badan yaanyo ma shiishiido markaan cuntada karinaa, laakiin mararka qaar waxaa waaye waa la iska sameysanaa dhib ma laha. Marka alxamdulillah intaan haysanina Ilaahay ha siiyo, inta haysatana Ilaahay ha noo barakeeyo. Alxamdulillah leenahay. Marka halkaas saliid yaraa ilaa digsiga kusoo shubtay waa soo shiilayaa. Intaan marka hore waa saliid, yaanyo iyo basal aan isku soo shiiday. Marka sidaas iskugu soo daray cusbo yaraan ku daray kadibna daboolkan saari. Waxaa kusoo darayaa oo kale shiishiidka aad u yaryahay laakiin half ku daraa half. Sidoo kale shiishiidka xitaa ani cuntada maalin walba ku darsado. Ma jecli amar Ilaahay moogiye. Yaanyada caadiga ka jeclahay freshka Marka cusbaa kusoo daraysaa ujeedaan waa isku soo laabayaa si fiican. Kadibna waa ka tagayaa inta ay kasoo karayso. Maasha Allah. Markay soo karkartay yaanyada cabaarka oo soo karkartay ay welina biyo badan qabto waxaa raba hilibkan inuu ku karo. Hilibka waa chicken si waaweyn u soo jaray. Marka sidaas waa shafka chickenka steak ama midka lafta qabin waaye. Waxaa ku soo darayaa kabsar iyo toon aan isku shiiday.
kabsar iyo toon isku shiidan aan kusoo daray. Waxaan kusoo darayaa wixii xawaaji oo dhan oo aan ugu talagalay. Kan waa paprika barbarooniga gaduudan oo shiidan waaye. Waan kusoo darayaa wax yar isaga kalar u yeelaa inta badan dhadhanba ma laha kan. Kalarkaas yacni suugada inay gaduud ii noqotaa rabaa. Marka waxaa kaloo soo furanayaa curry chicken. Kan waxaa waaye curry. Xawaaji curry waaye. Kan inta badan cuntada jaaluu ka dhigaa bariiskuna ku maac yahay. Isku kariska ama bariiska. Kanna waxaa la dhahaa tandoori masala. Marka maasha Allah xawaaji hindi waaye kan asagabo. Aad u caraf badan yahay una macaan yahay maasha Allah. Intaas markaas kugu soo daro daboolka u dhiibaa ilaa ay iska soo karkaraan. Waxaan rabaa hilibkaas inuu gudaha ka galo dhadhanka dhan iyo xawaajiga. Waxaa kaloo kusoo dari doonaa maraq digaag aan kusoo darayaa. Waxaa fiican digaag hadaa karinayso inaad maraq digaag u isticmaasho. Hadaa karinayso hilibka caadiga ahna mid kale ku isticmaasho mar walba isku soo baxayaan. Marka maasha Allah sidaas ugu soo darsaday maraq digaagii. Suugada way culus tahay waa ujeedaan. Waxaa yeelayo baalkii shiishiidkii asaas ka dhigayaa. Biyo dhan ma taabsiin doono. Markaasaa ay u soo karkartay. Hadda waxaan kusoo darayaa plain yogurt. Alaabtan adoo saan u karisay weli biryani camal waa ka dhigan kartaa. Asagii bariiska waa isku dardari kartaa yacni. Bariis hoos dhigi suugada kor saari bariis kala kor saari saas waa ka dhigan kartaa. Sidaanna waaba macaan ayadana maasha Allah lagama sheekeyn karo. Markaan yogurtka kusoo daray si fiican u labaaya haddana yogurtka macaan uu ka dhigaa cuntada dhanaan yar kaaliska arag. Midka sokorta qaba ma aha waa midka plain-ka oo dhanaanka oo waxba sokor wala flavor qabin waaye. Sidaas uu soo labaaya suugada dhan way isbedeshay. Yogurtka wuxuu kaa caawinaa wuxuu ku balance gareynayaa xawaajigii faraha badnaa ku dartay iyo balance kaaga dhigaa cuntada markaa ku darsato. Marka baradho waaweyn si waaweyn u soo jaraan sidii kale ku soo daray daboolkan saarayaa ilaa ay ka soo karto marka. Waqti dheer kadib suugadii haddee saliidii soo tuftayoo kartayoo isku dhuuq noqotay baa lagu imaaday maasha Allah. Sidaas ay indhaha ugu qurux badan tahay ay u macaaneed cuntadan lagama sheekeyn karo. Baradhadana waxaa uga buuxiyay baradho badan oo ugu daray ilmaha daraadood inay iyagu cunaan bariiska. Marka baradhada waxaa waaye ilmaha way jecel yihiin wayna kula korinaysaa ilmaha ha loogu roonaado. Si walba u karsan kartaa baradho waaye. Nooc walba hadaa u kariso waxa lay u taray ilmaha. Marka ani wax badan ku soo daray. Hadaa rabto waa ka yareyn kartaa wax yar camal waa ku dari kartaa labada xabo. Marka ani 4 xabo waaweyn soo jarjaray suugadii sidaasay diyaar ku tahay. Bariis cad baa dhinaca ku soo karsaday alaabtan wax kasta waa ku cuni kartaa. Siiba ceeshka aad ugu macaan badan tahay. Ani ilmahayga ceesh iyo suuga iskuma cunaan. Ceeshka shaah bas ay jecel yihiin inay ku cunaan. Marka canjeerada xitaa suuga ma jeclo. Ani marka waxaa u sameeyay bariis cad oo ay ku dhadhanaansadaan. Maasha Allah suugada lagama sheekeyn karo macaankeeda kaaliska arag waaye. Ka faa'iidaysta soo tijaabiya comment-kii igu soo qora insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin. Hadaa ilaa iyo intii la soo gaarteen waxaan iga codsanayaa inaad subscribe ii saartaan. Like-na dhac igu siisaan. U share garee walaasha midda oo ama saaxiibta si ay ayadana noogu soo biirto ay ka mid noqoto saaxiibayaasha adiga oo kale. Aad iyo aad u mahadsantihiin.